meesha waxaan rabaa inaan kasoo jeedino kelmad kooban oo ku saabsan shirka ka socda magaalada Djibouti dalka Djibouti. kelmadaas waxay ka koobnaan doontaa kuurgal loo kuurgalay afkaarta kala gedisan oo ay qabaan oo ay horumarinayaan qaybaha kala gedisan qoysaska Soomaaliyeed. waxay kaleeto kelmadan ay ka dhalatay fikir aan ka fikiray afkaartaas kala gedisan. waxay kaloo ka dhalatay anigoo akhriyay kutubta ka hadasha sidii ummadaha annagana la mid oo dagaalada muddada dheer ay haysteen ay uga bixi lahaayeen dhibaatada oo ay nabad u gaari lahaayeen, xorriyo u gaari lahaayeen, oo faragelinta shisheeye noocyada kala gedisan ay maaragtay u heli lahaayeen qaab ay maaragtay isaga saaraan oo isaga difaacaan oo uga amni uga noqdaan, iyo sidii maaragtay markaas barwaaqo ay ugu gaari lahaayeen. kelmadaas oo koobanna waqtan ay soo socota naga gudoomo. aad iyo aad baad mahadsantihiin. wadaadadu waxay yidhaahdeen shirkan hadda ka socda Djibouti ma aha in lala hadlo wafdigan ka socda qoladan loogu yeero dowladda ku meel gaarka ah oo la yiraahdo beesha caalamka ictiraaftay. wadahadalladan shicibka Soomaaliyeed ee dhiban ama kuwan qaxay ama kuwan dhaawacan ama kuwan maaragtay dhibaatooyinka kala haysato, dad badan ayaa u arka inay haddii wax lagu heshiiyo oo la helo qaab nabadeed oo Itoobiya laga saaro in dad badan naftooda iyo maalkooda Soomaaliyeed ay u badbaadi lahayd inta hadda joogtaan guryahooda inta kusoo laabtaan noloshooda caadi ay bilaabi kareen. suurtagal noocaas ayaa jira oo haddii fursad la siiyo laga yaaba inay suurta gasho. dad badan oo aan Soomaali ahayn oo jecel wanaagga Soomaaliyeedna oo taageera dowladda Itoobiya sababo maaragtay ay leeyihiin waa xagga amniga arrintaas ay rabaan ayaa jirta. marka website-yada Qasidiya iyo Kataib.net oo ah laba website waaweyn oo qolyahan maaragtay wadaadada oo wax iska caabinta ay isticmaalaan, labadaba maqaalooyin fara badan ku qornay. markii aan akhriyay intooda badan afar maado ayaa ugu weyneyd sababaha ay leeyihiin maaha in la hadlo qolyahan dowladda ku meel gaarka lagu sheego dowladda ku meel gaarka. maadada kuwaad waxaa waaye shirkan shirqool waay caalami ah oo la doonaya in wadaadada kasoo horjeeda gumaysiga laba loogu kala qaybiyo, qaybna dowladda lagu soo daro, qaybna la faquuqo oo markaas meesha laga saaro. markii laga saaro meeshana ahdaaftii ay u taagnaayeen oo ahayd dalka in Itoobiya laga saaro, haddii caalamka kaleetan ahaan sidii gumaysiga loo dhamayn lahaa, dowladda islaamna loo dhisi lahaa, meesha waa ka baxaysa. markaas waxaa suurtoobaysa dowladda Itoobiya inay himilooyinkeeda gaarto oo Soomaaliya ay ka dhigta qayb ka mid ah Itoobiya. dowladda islaamiyana aan la gaarin. kuwa Soomaalida ah oo maaragtay xaliifka la ah ama sida ugu yaraan dabadhilifka erey fiican maaha, laakiin xaliifka la ah oo maxaa dhahdaa isbahaystada ah ama markaas ay xukunka Itoobiya raalli ahaanshaheeda ay ku hayaan. saasaa waxay leeyihiin laga damacsan yahay. qoraalo badan arrintan laga diyaarinin nin lagu magacaabo Hargeysaawi oo Kataib.net oo qol magaalo dheer kusoo qoray saas uu leeyahay. arrintaas يعني
qolo ka tirsan dowladda ku meel gaarka naftigeeda arrintaasi ku doodaysa oo xilada Nuurcadde barnaamijkan siyaasadeed oo wado ee dib u heshiisiinta ee qolyahan Asmara joogo la wado waa qorshe looga dan leeyahay in dowladda qayba ka tirsan in lagu faquuqo oo ultimately-na meesha laga saaro oo qorshayaal noocaas oo kale sidaas ayaana sharaxi karta dhaqdhaqaaqyadii hadda Baydhabo ka socday oo la doonayay in maaragtay motion loo qaado xilka Nuurcadde laga qaado marka haddii qolyahan maaragtay soo gaabay magacooda si maaragtay aan maanta dhan ugu laalaabanin inay dowladda la ictiraafsan yihiin dowladdan la ictiraaf because waxyaabaha la isku haysta ka mid dowladda ku meel gaarka waxa waa DK qolyahan dowladda iska dhaxno qolyahan dowladda mar walba aan saas raacino dowladda macna waa anaga ma dhihin dad kale taa dhaxaamo iyo lamid quotations waa marka lama hadlayna yiraahdeen qoladan dowladda hadalkii aga dhuma because maanta lagu macalin karo dowladdan la ictiraafsan iyo dowladda la ictiraafsan yahay qoladan aan iska dhaxno Nuurcadde taasaba ka sii fudud marka qoladan Nuurcadde xabsida ay qabaan waxay la mid tahay xabsida qolyahan Asmara ama xasan Dahrawi iyo Sheekh Shariif ay qabaan la mid tahay oo hadda koorbu macna qolyihii matalayay beeshawi waxay isku dayeen inay geedi xiriir la sameeyaan si Cabdullaahi Yuusuf ay goon u la baxaan marka waa khata oo tactical oo waxa waay siyaasadeed oo daa'iman la isticmaalo oo ah laba in isbahaysato oo mid goon loo saaro midkaas laga takhaluso dhulta labada isku soo laabtaan ayaga dagaalama mid ma aragtay aakhirkii la soo baxo marka sabab ma looga dhigi karo arrintaas mideeda kale shabaabka naftigooda qoraallo badan oo islaam kitaabada ku qoran waxay sheegeen in wax wada hadal la gelinin qolada Nuurcadde dagaalkan uu sii soconayo ilaa ma aragtay dowlad islaam la helo Ethiopia dalka laga saxo marka qaybsiga horub u jiray oo hadda wax cusub ma ahayn marka wala yaabaa inay qayb kansanaantaas jirtay inay sii xoojiso laakiin aragtida mid meesha ku jirta waxay tahay haddii macquul tahay in Ethiopia dalka nabad looga saari karo oo beesha caalamka ila la kaashan karo iyo dadka kale oo Ethiopia taageera lacag iyo waxyaabo ku taageera lagu kaalmeyn karo Soomaalida dhexdeedana ay heshiis gaari karaan ilaa 2009 guddi wax la sameyn karo oo doorashooyin la abuuri karo oo la abuuri karo jawi ay doorasho ay ku imaato dowlad maaragtay dowlad soo doortay oo rabitaanka shacabka ku imaato haddii la abuuri karo taas marka waxay dhalinaysaa in aanan loo baahnayn in qaab dagaal wax lagu raadiyo oo dadka hadda joogana dad badanna ay ku nafwaayaan ku dhaawacayaan kuwa hadda joogana aysan uga bixin dhibka ay ku jiraan marka waxaa habboon qolyaha ka soo horjeeda oo ay u arkaan in nabad lagu gaari karin xorriye iyo nabad iyo maaragtay maamul doorasho ku yimaada doorashana ku taga dadka aaminsan inaan nabad lagu gaari karin inay fursad siiyaan way arrintan oo ay fiiriyaan ayagu naftigooda ay taageeraan markaas kala qaybsanaanta meesha waa ka baxaysa hadday fursad siiyaan oo yiraahdo war nimankan 6 bilood ama 8 bilood iyo hal sano hala sii xabad hala jooji bal hala fiiriyo in dalka Ethiopia uga soo ari karaan maamul uu ku imaan karo doorashooyin lagu sameyn karo maamulkaas oo Soomaalida la yiraahdo ay bal doorta ciidaad rabtiin rabitaanka dadka ku imaanay rabitaanka dadka ku tagay taas waxay meesha ka saaraysaa muddadii dheer ee Soomaalida dhibaatadii u dhaxaysay oo ahayd yaa dalkan xukumahay